بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. maanta taariikhdu waxa ay tahay 25 bisha Abriil 1994 magaalada Hargeysa ee dalka Soomaaliland. waxaan nasiib u yeeshay in aan halkan kula kulmo nin magaciisa la yiraahdo Mr. Maxamed Ibrahim Xayd oo ku magac dheer Xiis. waxaan jeclahay inaan ka waraysto arrin xasaasi ah oo documenti ah oo goobjoog u ahaa taasi oo ku saabsan dilkii madaxweynihii dalkii la oran jiray Soomaaliya ee sharci ahaan loo doortay ugu dambeeyay madaxweynahaasi oo magaciisu ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo la dilay 1969 bishii Oktoobar 15 Mr. Maxamed Ibrahim Xayd waxa uu markaasi ahaa askari CID-da ka tirsan oo goobjoog arrintaasi u ahaa oo ka shaqeynayay isla goobtii lagu dilay Cabdirashiid Cali Sharmaarke ilaahay u naxariistay madaxweynihii dalka Soomaaliya oo markaasina uu ahaa askari ka tirsan CID-da ee saldhigga booliiska ee magaalada Laascaanood. su'aasha ugu horreysay aan weydiiyay Mr. Maxamed Ibrahim Xayd waxa ay ahayd goorma adiga lagu qoray ciidanka booliiska ee dalka la oran jiray Soomaaliya? waxa la qoray 1965 baan ka soo baxay Dibooba. marka waxaad ka soo baxday halkee baad ka qaadatay? waxaan ku qaatay iskuul booliisi dugsiga sare ee booliiska ee ku yaala magaalada Muqdisho. marka halkee baad ka shaqeysay markii aad ka soo baxday halkaasi? waxaan ka shaqeeyay ciidanka booliiska ee la oran jiray birmadka booliiska ee Muqdisho ayaa lay bedelay markaan ka soo baxay Diboob. kadibna 1966 baa layga soo bedelay oo waxa lay soo bedelay Boorame. kadibna waxa layga bedelay Boorame oo waxa lay keenay taraafikada Hargeysa. sanadkaas waqtigeeda markaa 1968 baa lay keenay taraafikada Hargeysa. haddana waa layga bedelay waxa lay bedelay Burco. taariikhdee 1968 isla 6 bilood ee dambe waa Burco saldhiggeeda oo saldhigga Burco waa hada goorma Laascaanood ugu bedelay? lay bedelay 1969 bishii baad tagtay markaa Laascaanood? bishii afraad bishii Abriil. waxaad nooga warantaa haddaba sheekada tan madaxweynaha dilkiisii dad badani waxa ay ku eedeeyaan dad masalan uu ka mid yahay Maxamed Abshir inuu ka dambeeyay. waxay kala dad badan ay yiraahdeen markii baaritaankii uu socday waxa uu ku arooray isaga oo la leeyahay macni markii laga qaaday booliiskii oo haysan jiray oo janaal ka ahaan jiray oo qorsheel qabtay ayuu hinaas oo dawladda inuu afkambiyo awgeed. arrinta maadaama adigu aad u ahayd xoogaal nasiib wanaag aan maantana fursad ku helay bal Mr. Xiis waxaad nooga warantaa siday arrintu u dhacday iyo madaxweynuhu sidoo u tagay halkaasi? wallahi wadka Soomaalidu way iska badan yahay laakiinse anigu shakhsi ahaan markaan Maxamed Ibrahim ahay waxaan u haystaa inuu isaga uu ku lug lahaa sababta oo ah xamarna in dooran ka soo shaqeeyay oo nin booliis baan ahaa oo wax kala garanaya oo mutacallina markii aan Laascaanood joogayna sidoo u dhacay ama dadkii la socday madaxda ahaa ama markii dambe aanu isaga qabanayba markii madaxweynaha dilay hadallo uu la yiri isagu aanu ka soo dhex saaran. waaye bal sheekada sidee bay sheekadu u dhacday? harta borogramka anagu aanu haysanayo booliiska iyagoo magaciisa la yiraahdo fas oo dharo bil walba soo baxa ayaanu ugu soo sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliya uu imanayo waqooyi iyo inta degmo uu marayo marka kuma aynaan jirin degmada Laascaanood. marka waanu isdhiganeeba oo taarka yaga ama sheekada iyada ama baabuurta dee imanayso ilaa madaxweynuhu halkaas uu imanaya mooyaane uguma naan tala jirin ba madaxweynaha idin imanaya idinka degmadiina
وواتانا نوصل شيء برعان مركو مريو مقال مدح دي هرجيسة وسود ميجيبا ولبي هبين برعان شوقو أيا هبين هذا كم بيلان عنو شقنا لها سيدي دي هبين عنو سيدي هرجيسة يسكتشوقا تاروله إيه يا markaasuu yiri telegramkan waxa la doonata laba xidig leh Cabdilaahi Baylan barwaa ka muqaaxida hor joogay telegramkii baan sidaa u eeday waxa ku qoraa dabadeedna madaxweynuhu 8 subaxnimo birta buu idin hayaa idisagoo idin ku nasanaya 1 hour markaasi in programka kuma ay jirin Soomaha hore programka iyaga horaan haysanin kuma jirin inuu yimaado in la saxano laba xidiglaha aad la doonanaysa la guuri taarka la doono xagee taarku ka yimi laba xidiglo muxuu yahay laba xidiglo wuxuu ahaa ninkii haystay creamka kiisaska oo dhan ee CID da macnaheedu la saxanood taliya laanta CID da dambiyaasha CID da Baylan bar bay Cabdilaahi Baylan bar ilaahay ha u naxariisto uu dhintay yaa soo dirayna waxa soo diray telegramka barasabka burxo oo uu leeyahay u diyaar garooba taariikhdaas markaa waqtigeeda سجاري اللي إحنا كيبه ده يسمى كيب بشيء أفريقيا في أكتوبر كوني سجال بقول سجاري اللي إحنا كيبه مكان أبسلت أوكي مدحون ودي مكان إذا مكان ما يولي سديدي هبيني ما مكان هاي أيها حدنا سديدي يبركي تاري كلام كله أنت إثبات ونويمي ولا ليه هاي صدق تراويش ده أيها صباحي إسلا سديدي يبركي هبيني ما oo ilaalinaya ordina publicada tayuuradaha laba tayuurado madaxweynuhu wato waa hagaag isla habeenkaasi markaasi yaa soo diray nimanka daraawishtaan waxa soo diray nin laba xidiglo imka dhinto la jiray Cabdiraabi waa hagaag wadii ma markaa shaqada habeenka shaqada lahaa onkol kana marka waa noo yimaadeen waxaanu sugnaba labadii iyo 15 mirir baa loo soo galay gaarigii LG-ga ee 30 ka siday daraawishta ee Braaki oo la saanood soo gaar askarteedu deetriiskiis ka safaysanayso oo mishiiro generator aan lahayn deetriiska hortiisa lagu wada safaysanay deetriisko daan salaano diyaar garoonay ka bacdi laba xidigli stationka xukumayay oo la yiraahdo bedel xirsi ayaa isna aad mooday inay telefoonba oo isku rakibnaado markuu sodonkii nin noo yimaadeen isna gaarigiisii ka soo istaanay gurigiisii markii bay isla kay soo taag بدل حسين مركا وحو هيستي سلقة iyo guud ahaan حسنك deesa laba xidigli saldhiga haystay ayuha بدل حسين ma ninkii korneelka ay traffic-da xamaraysan jiray absolute ee Muqdisho tabadeedna ila xaalka anagu khadka ma loo geeyay dadku isu xiga iyo siday kala yihiin taa madaxweynaha dili doona ayuu askartii ka dhex qaatay sidoo gurigiisii wuxuu ku ritay gaariga shirkiisii oo dhaqaaqay habeenkii saqdin ay dambe soo gaareen markiina soo gaareen bidi askarigii yirida taagnaa sidii yimaadeen markaa labadii barkii habeenimo askarigii gaarka ahaa ee yirida u taagnaa ayaan weydiiyay markaasna gaariga hawlgalaysa muxuu ahaa markaasuu wada laba xidigliyo ma yimaadeen askartii oo dabadna nin daraawiishta oo qorisita ayuu qaatay xaggaas uu kala qabtay sodonkii kamid ahaa halku qorbaan dhoobi markaasuu damagiisa garmaayo saani aanu hisneen iska dhig nin askariyo laba xidiglo qaatay damagiisa garmaayo goortu soo celiyay dambana iisha labadii barkii habeenimo qaatay laba eedaan baa jiro eedaanka dambe afartii ka hada afartii hore ayuu hadana askariga waaga ugu berinay horgareeyay gaarigiyo markaasuu wala ba xidig la bad xirsiye ka jar jornaati masama waa ka soo digay askarkiyo hor jiifta station-kiyo nin iyo bustaan uu siinaa meesha ay kadib ayuu laba dhexdood hoosta ka galay asaa waagu noogu beri sidaasay dabeedna airportka wixii madaxdeeda joogay wixii odayaal ahaa iyo ciyaal iskuul iyo winis kalaab iyo wanaga airportka wada qabanay madaxweyne waa taa si fiican ilaahay ha u naxariistee salaan wanaagsan aanu siinay garowkiina lagu soo dhigay marka askarigan uu qaatay bedel xirsi markii waad ku qorteen markii uu qaatay iyo markuu soo celiyay magaciisa laakiin maad garan maxaan ku garanay waa habeenimo intrigii aanu ku qornay reportka markii hore baan markii dambe la dilay meedkiisa ku rifqay airportka waa tagtay markaa
eeriboodkii baanu tagnay si wanaagsan baanu salaantayadii u bixinay dadweynihii reer laascaanood si wanaagsan bay u soo dhaweeyeen odayaashii culimaddiinkii dadweynihii wax walba marka anigu xagga koonfureed laascaanood eeriboodkeeda marka dadweynka shan tallaabay isu jireen soddonka daraawiishto ayuu taagnaa uu kaga soo jiray garoonka marka wuxuu is yidhi halkaa ka teeray garee markii wax dhacaan baa dabad fahantahay eeriboodkiina oo bannaanoo dayuuradii taagana dhaaragtii lagugu soo mari kari waayey wuxuu la wareegay laynkii khadka soddonka iyagii salaanta bixinayay markuu la gudboon yahay askaragayagii koonaa ayuu madaxweynuhuna ka degay meeshii salaanta ee loogu talagalay markaasuu xaggii dadweynaha u dhaqaa wax yaroo gaaban buu ahaado dabeedna laba laynoo askartayadiiyo safkii ku jira buu siga kala dhex maray 3 alifle biliiska iyaga oo saldhigaya ka tirsanaa ayaa dhirbaaxa ku dhuftay halkaa gacanta weli waa xibaalkaagan dishibliinka cun askarta rigeysina taagan maxaad u dhex maraysa ka wareeg orod goonaha mar dalku xidhan yahay iska jiisa kaay arag waaba nala wada indhasaabay midda kale dee filcaalamiinka lama arag askari madaxweyne deedila markaa maanka iyagaba way ka baxday waa annagaa nimid dabad local governmentkii inkoo safaaro la yidhaahdo oo daraawiishta bariiska haysan jiray oo madaxaha ayaa dabad qubli akhri wuxuu yidhi madaxweynaha waanu soo barinay dooni maynuna hadal badan timena ma haysto wax laga sugayaa in gaalkacayo 3 oday oo qura oo hadalka soo gaabiya oo aan dheerayn oo qura ayuunbaa hadlaya markuu mid hadlay midkii labaadna uu bartanka kaga jiro ayaa aniga baylambar ilaahay uu naxariistay soo baxado anuu iridda hor taagano wuxuu yidhi halkii shaaha loogu talagalay soo jeegareeyoo qabo gaarigana ii suulay halkii baan tegey hablihii winiskalaadkoo shaahii iyo alaabtii lagu diyaargaray darawarka markuu iga yiman halkii keliga iska taagay ayaa laba xidiglihii saldhiga haystay ee bedel xirtay oo isaga naftiisii sida ninkii ka shakisanaydeen aanu ka shakisanayn iyo qorigiisii ii keenay oon baabuurka cid kale la socon maxamed ha kula taagnadaa koonaha taagantay albaabku maya koonaysa waa hagaa shooninka habeennimay ahaydo isma baanaan garanayn isku dhiboo babanahay waan idhaha war bal waran nabad barbarkayga waa gaystaa magaciisi ma garatay markaa gartay jahanabaa naanaystiisu ahay dabeedna siduu warkii waayo oo xaggee lagu bedelo berigu leeyahay daraawiishta halkaasa layga keeno kismayaa warkii haya ayaaba madaxdii oo sii deynaysa oo kii laba xidiglaha ee bedel xirse u horreeyay gaarigiisu isa soo taagado intuu isagu kala furayo baarkin cidla'a istaagay ayuu labada keliyood qabsaday nin reer waxaysoo inaa cigasayid la yidhaabaa gaariga madaxweynaha u waday oo aan garanaya labada gamcood baan sidaa u taagay markaan isri cagaha ayuu kaaga joogsan doonaa labada taayir hore siduu ninkaas ugu talagalay albaabkaa gaariga wuu sii madaxweynuhu hadduu tallaabo dhulka dhigo tallaabada kale aqalkaa ku qabo labada gamcood markaan sidaa u taagay ayuu dee breeg ku qabtay kamuu degin gaariga wax lala wixii madaxweyne ku xigeen lahaa ee jananaar buliiskaa lahaa ee barasaab lahaa ee wax kaloo lahaa waxay ka soo degeen aniga geystaydii waxaa lagaga yimi gaarigii madaxweyne oo khaliya iyo darawarkii ee station waagan buu ahaado waa taqaanaado wuu kala dambeeyaao xagga dambe koono uu madaxweyne u fadhiyo madaxweyne ku-xigeenkii oo hor taaganoo dee kabaa sidaa igaga joogsanaya meesha cidhiirigeeda oo muraayadii baabuurka iga qariyay ayaa qoorshiro iyo hor taagan la hadlo wuxuu madaxweyne muxuu la soo degna qorshir baa bowrado wuxuu bar ii baneeyo laynkii ay soo mareen ayuu dubina badadkii ii baneeyo halkay ka soo degeen daaqadii buu ka fura madaxweynihii baa gacanta u taagay qorshiro wuxuu iska xig xagganaan ka degaya qorshirna waa kaa iska xidhay daaqadii soo galay halkiisii ee aniga kabaha iiga joogsanay 3 alifle ka tirsan buliiska iyaga oo laba xidigla iyo
labada gamcood kaliya haysto baarki ilaa iska taagan ag taagan ayaa tawgu soo yidhiyo madaxweyne buu ka furay daaqada kamuu bixina daaqadii buu la laabto hoosta ka soo galayo qayla dheer oo la wada maqlayaa buu laba xidigli badda xirsaday laba alif le saddex alif le axmed cabdilaahi soo kamaad furin madaxweynihii daaqadaha ka baxa dabadii adigu waa booskaagii ku noqon daaqadii oo afka kala hayso madaxweyne aan weli lagu soo laalaaday musaajinka xarro bartii uu istaagay taagnaa buu istaagay hadi wuxuu lahaa ilaahay naxariista jinaasiya inuu usha iska soo horeysiyo ushii markuu iska soo horeysiyo waa ninkii buuraayo dee xoog ahaay uu saani labadii lugood dhulka u soo dhigay ayay kii dilaayay dee sankiis iyo sankiisu dhaarag jiray isku noqday wixii alla wixii madaxaaya wixii kalena aniga hortaya oo albaabka dee hortiisa ayay wada hortabayihiin muraayadii oo dhan iga wada qayo markaasuu yidhi acuudu billaahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi araxmaani iraxiim hal tallaabuu soo qaadayoo wuxuu ku yimid dhinaciga sayid darawalkii daaqadiisii kii labaada ee uu isiri qaad ee turuska ka laabo ayuunbuu sanka u saaray halkaa weji meeshaanu taagnay waa boor midhan oo busa show midna halkaasay kaga dhacay salaanta labana boorkii ayay galeenoo minid baa laysa aniga waa ku wixii dilay dabeedna waxa la wixii madaxda ahaa wax yaroo dhuuban baan ahaado baq dhulka iirday ee ugu tuntay meeshuna suriya yaroo ciriiri ah minid markii la sirku waayay tooskii baabuurka qarxisay in xigisay iyadoo ku jira muraayadii ku qarxisay ay soo labalagdaysay ayay dusha igaga keentay isagoo laa ilaha illa maxamed rasuulullah laa ilaha illa maxamed rasuulullah baan iriyo markuu inuu ninka culus buu hay ugu dhacay ayaan daba sidaa iskaga riixo waxaa isri kac cuskadan gacantaa midigta dhulka cuskadan isri kac ayuu tallaabo iga soo booday dushaydii anigoo 17 kalena wuu ku furay kii dilaya ku furay jahanama isbirin maqaasiinkii ayaa dabad isballaqay waxaan gartay inaan xabad dambe dee ku jirin meeshaan ku booday waan kore oo koonaayo qoorsheenoo dabad halkee taagan ilaa halkanaynu imika fadhina ilaa istationku intuu inoo jiro ayaa yidhi maxamed ibraahim xaaji markaa waan ka xoogeynaa mar qura markuu sidaa iiga muugiyey qorigii afkiisa ayadayna isbir maqaasiinkii afku kala hayaa waa maran yahay aan sidaa ana haya ayay isoo gaadheen qab jeerkaygii baanu geynay dabadeedna dayuuradii baa madaxweynaha intaba la saaray maydkii baa la saaray markaas maydkii baa la saaray xamar baa la geeyey xamar baa la geeyey maxaa dhacay intaa kadib maxaa tallaabee la qaaday in yar markay naga maqnaayeen 2 cisho 3 cisho telegram loo soo diray waxaa la yidhi baarista u horreysa laasaxaanoodow yeesha isagii baan ugu tagnay jeelkaa wax baanu ka qoranay markuu waraaqa naga dhammeeyo ee jeebabkii naga dhammaadaan ee wax walba uu noo qoro eanu halka u dambaynay marayno ayuu nayidhaa wax allo waxaan idiin sheegay waa beentay laba xidig la been bar waa ka yaab ilaahay u keen xamar baanu telegaramta waxayna been buu ninkii saadeeni u leeyahay waxa la yidhi raashinka ka jira waxbaa siin laba cishaana waxba siin waanu u nimi maalin saddexaad kolba meel buu isku taal markii dambe dabadna naloo keenay dayuurado niman saraakiiloo heer sare oo dee qoladii madaxda ahayd ee khubriyiinta ahayd xamar CID noo yimaadeenoo waa kuwaa naga qaatay markaa miyaan idin fahmin markii aad wax isu egeegteen ninkan dilay iyo markan uu ninkani qaadanayo maxaad markaa ugu malayseen xiriir bal maxaad u malayseen waxaanu ugu malaynay ninkii madaxda ahaa ee isaga ahaa ee xukumayay ee soo diray ee cabdi raabi alba xidigla ahaa ee buuxa xukumayay ayaa yidhi mar maaha oo 2 maaha oo 3 maaha intaan ribood ka qoray ninkaasaan shaqada haligeeyo ee la yidhi 5 cisho ganax ama 10 cisho cabdi raabi saa soo qoray ribood markaa ayaa igu leeyahay igu leeyahay ganax ayaa ku oran lahaa ee jiranaar xabash waay isagii bedel maxay noqdeen ilmaadeen iyo maxamed abshiri wuxuu leenka u dhaxal kasoo buuqa marka waxa jirta hadii jeer in la sheego la yiraahdo in arintan taladan waxay ku soo gooyeen Rome bay isugu tageen Talyaaniga
markii maxamed ashir laga qaaday meesha dawladda cabdi risaaqna dhacday oo yiraahdeen waa inay dilo ninka arrinta barka war markii si ay dhida baadeen wax xiriir ma ka hesheen in arrinta ay ku lug lahayd adigu taa wuxuu qabtay Roma oo taa inta maxamed joogay sheekada wala socon dabadeedna programku wuxuu buu ahaa sidii madaxweynaha ama prime minister miduu loo qarjina madaxweynuhu bay nasiib hore madaxweynuhu bay nasiib hore ninkii markii dambe jahannama awal wala dilay Soomaaliya halkii uu ku dilay shiijeedkii baan ku dilay saxanad ku dheeyay ila saxanad ku dheeyay afweena qabsaday laakiin lama baarin kiiskii afweena muu baarin oo dadkii ka dambeeyay wixii oo yaa ka dambeeyay dawladdu wax ka dambeeyay wax baaraysa ما فينا كل شيء أنت ما متى محلو بلو واحد أنا توقع سمع كل ما ومرجع حيس مين كان مدحوينك حجين كانت كل شيء جسوا دلكم مدحوينك حجين مو هين ما حد بتشي ده هو حين وي كلها برلمان ومرجع اسمه كرنسا الشيخ مختار واد مع سنتي مرجع مين كان محمد أبشير مركي دمبه بوليس هان أتصحن حنستين سي دي حمرية وحا أنا بسيك وأعرف مياه isagu bay isku soo biisho wala leeyahay isaga ninka isaga qoray ninka jahannama isaga qoray oo markan hore u soo bedelay meesha hada uu bedelay qof laga markuu falsafad wata soo qofka meesha doono bedelay laba goor hore teeri karay xamar inuu ku digo oo aad ogeydeen laba aan warkiisa maqalay markii baaritaanka ka soo baxday nooga soo baxay laakiin suurta weey waa uu suurta weey barniya waxa soo torturay waa intii laga qaadina marka in qorsheel isagu ma ogeyn waxaan oo shaqo kuma lahayn isagu fiish kuma dadku hay'adda shaqo kuma Ahmed Ismail Samatar oo markaasi ka tirsanaa shaqaalaha laanta Soomaaliga ee BBC-da ayaa maalintaasi idaacadda furay maanta oo salaasa oo bisha October ay 22 tahay waxaan maqli doontaan Ismaan Xasan Culmo Waxmar warkii oo kooban ciidamada militariga iyo dirayska ayaa la wareegay xukunkii dalka Soomaaliya dalka Afrikada galbeed ee Dahomey la yiraahdo waxaa la sheegay in la isku dayay in la dilo ciidamada wadanka ninka u sareeya madaxweynaha cusub ee dalka Jarmalka galbeed waa heer Willy Brandt waana ninkii ugu horeeyay ee ay yeeshaan xisbiga la yiraahdo Social Democrat ee wadanka madaxka ah intaasi waxay ahayd warkii oo kooban imikana warkii oo fidsan ciidamada militariga iyo dirayska ayaa la wareegay xukunkii dalka Soomaaliya inqilaab ay dhigeen oo wararku ay sheegayaan in dambi ku taagan waxaana ay sameeyeen majlis al-inqilaab afgambigaasi wuxuu dhacay saaka salaadii saacadu markii 3 ay ahayd waxaana halka ay ku afgambiyeen xukuumadii Mr. Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ee ka samaysneyd xisbiga SYL waxaana 6 maalmood ay ka dambeysay dilistii madaxweynihii Soomaaliya President Cabdirashiid Cali Sharmaake oo dilmada imika loo hayo nin ka mid ah ciidamada dilayska bando ayaa lagu soo rogay dalka inta u dhaxaysa 4 galabnimo ilaa 10 subaxnimo waxa kale oo majlis inqilaabku ay ku dhawaaqeen inay u shaqeyn doonaan sidii loo baabi'iyo qabiilnimada waxaana la mamnuucay 3 ruux wax ka badani inay shiraan ciidamada militariga ayaa ilaalinaya oo sugan jidadka magaalada Muqdisho waxaana amar loo siiyay inay baadhaan guryaha iyo baabuurta xuduudda iyo gagiyaasha diyaaraadka ee dalka Soomaaliya waa xidhan yihiin ilaa imika lama ogsoona halka ay ku sugan yihiin dawladii la afgambiyey raggii ku jiray laakiinse Mr. Cigaal waxaa la sheegay gurigiisa inay ilaalinayaan oo ay ka hayaan ciidamada militariga Mr. Cigaal waxaa ra'iisul wasaare uu ka ahaa dalka Soomaaliya ilaa 1967 waxaana Soomaaliya ku soo laabtay toddobaadkii aynu soo dhaafnay markii booqasho uu ku gaadhay dalka Mareykanka